marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen, nolosha qabrigu waa habeen, nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya. nolosha adduunyadu wajacalna al-layla wan-nahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلى هيري آية الليل آية النهار نولشان الدنيا أن كنا لهي ومالين يا هبين مالين واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد زيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله أيري. نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لكو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا waxaa looga dhigayaa godgododka naarta kamida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaa مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله أهل كيغا النغضة الله inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciida intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulillaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaamah maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدودون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين ملو ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوان لجوغي توبان كنوا صنوان حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوان يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنوان حسابتا كل مان دون لنا عربي ورير بادية ayaa saraka cuyr yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona markaa ninkii caraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najawna wa rabbil kacba kacbada rabbigayga ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad gallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك ماذا مجرو
hadduu jirana buu rasuulku leeyahay rabbigii buu qiyaamaha la kulmi doonaa addoonkii iyo rabbigii maalinta cid u kala afcelinaysa ma jirto luqa carabiya lagu wada hadlayaa xagga midigtuu eegi camalkiisii buu arki xagga bidixduu eegi camalkiisii buu arki hortiisuu eegi naartii buu arki fattaquu nnaara walow bishiqqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeedoo sadaqadaad u bixisaan kolay noqotana timir jeex walow bishiqqi tamra faman lam yajid fabikalimatin طayiba buu nebigu yidhi timir jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdu lilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu طayibatu sadaqa buu nebigu yidhi caaisha radia allaahu canha umma almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlaa bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha umma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badani waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almawtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru baytii halka laydhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati tariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo berritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuulallah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaadda faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaaddii maqrib 5 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa meeshuu marayo aakhiraduu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo dhaqaalahaan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku wuu xisaabtamayaa mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday
salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraaya